kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran oo markaasi si degdeg ah dalka ugu soo laabtay isla markaana ku dhawaaqay go'aan culus ayaan markaasi idiin soo gudbin doonaa daawadayaal sidoo kale waxaad markaasi warbixinteena ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay dib u dhaca doorashooyinka maamulada markaasi dalka iyo walaac markaasi laga muujiyay sidoo kale markaasi idin wadaagi doonaa daawadayaal inta warbixinteena aanu ku guda jirno madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro waxa uu qirtay in dawladda federaalka ay markaasi maamusho dhowr arrimood isla markaasina waxa uu si toos ah u qirtay markaasi dawladda Soomaaliya in haatan ay iyadu markaasi si toos ah ay u maamusho dhowr arrimood waa saddex arrin markaasi uu si toos ah farta ugu fiiqay Cabdiraxmaan Cirro hadaba arrimahaasi maxay yihiin faafahinta ayaad kaga bogan doontaan daawadayaal intaan guda galin marka koowaad soo dhawow muuqaalkan like saar siina share garee si dad badan ay u gaarto marka warbixinteena waa hagaag waxa dalka dib ugu soo laabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo markaasi muddo dalka isaga maqnaa waxaana haatan soo laabashadiisii kadib uu isla markiiba isagoon meel kale ku leexan uu si degdeg ah markaasi uga qayb galay shir markaasi uu isugu yeeray dhammaan madaxda xisbigiisa Himilo Qaran waxaana uu markaasi si toos ah markaasi ugu sheegay in uusan aqbali doonin wax haba yaraatee muddo koror ah oo markaasi ay sameeyso filla Soomaaliya madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa markaasi shalay dalka dib ugu soo laabtay isla markii uu garoonka ka soo degay wuxuu ilaamiyay shir uu markaasi la yeelanayo xubnaha sarsare ee xisbiga Himilo Qaran ila ku dhow markaasi xisbiga Himilo Qaran ayaa inoo sheegay in ajandaha ugu weyn uu ahaa mowqifka xisbiga ee ku aadan muddo kordhinta ay ololaha ugu jirto dawladda federaalka oo waayadan hadal haynteeda ay markaasi badatay xogtu waxa ay markaasi tibaaxaysaa in xisbiga Himilo Qaran ay u tahay qadcas oo aan marnaba markaasi la aqbali karin muddo kordhin nooc kasta oo ay tahay oo dawladdu ay u furan tahay oo kaliya in ay isugu yeerto saamileyda markaasi doorashada si looga heshiiyo doorashada markaasi doorasho la isla ogol yahay laguna hirgeliyo muddada yar ee markaasi u harsan xilhaynta sharciga Sheekh Shariif ayaa xusuusiyay in tan iyo dawladii carta lagu soo dhisay Soomaalida ay isku raacsanayd in doorashada 4 sanaba mar la qabto isla markaana aan loo dul qaadan karin siyaasiyiin isku dayaya in ay waqti dheer ya markaasi ku sii nagaadaan xafiiska xisbiga Himilo Qaran ayaa markaasi si cad u muujiyay mowqifkiisa isagoo markaasi sheegay in muddo kordhin kasta oo markaasi lagu sameeyo dawladda federaalka ay sharciyan iyo siyaasad ahaan toona markaasi aqbali doonin Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa markaasi si cad u sheegay mar uu la hadlayay xubnaha markaasi xisbigiisa Himilo Qaran waxa uu yiri haddii wax kasta oo dhaca cidna markaasi ka aqbali maano muddo kororsi waxaan ka xignaa xitaa haddii ay noqonayso in markaasi hubkeena aan la soo baxno isla markaana aan la dirirno filla Soomaaliya waxa mar kale la filayaa in magaalada Muqdisho ay mar kale martigeliso markaasi gilgil cusub oo mucaaradku ay markaasi sameeyaan iyo sidoo kale isu soo baxyo la filayo in dhawaan magaalada Muqdisho ay qabtaan xubnaha mucaaradka waxaana markaasi haatan ugu saameyn badan mucaaradka ku sugan magaalada Muqdisho Sheekh Shariif Sheekh Axmed balse waxa macquul ah in maalmaha in soo aadan dalka uu dib ugu soo laabto madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo isna saameyntiisa wato iyo xisbigiisii markaasi nabad iyo nolol dhinaca kale ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa ka hadlay dib u dhaca markaasi iyo daahitaanka doorashooyinka maamul goboleedyada dalka xilli wali ay jirto xiisad culus oo ka taagan qaabka loo wajahayo war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in sii socoshada dib u dhaca doorashooyinka dowlad goboleedyada qaarkood ay tahay mid lid ku ah dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaag sidaas awgeedna loo baahan yahay in la qabto doorashooyinka bulshada rayidka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in markaasi doorashooyinka oo degdeg loo qabto ay muhiim u yihiin hanaanka geedi socodka siyaasadda dalka si looga gudbo marxaladda adag ee haatan lagu jiro bulshada rayidka waxay u aragtaa sii socoshada dib u dhaca doorashooyinka maamul goboleedyada qaarkood mid lid ku ah dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga sidaas darteed waxay ku baaqaysaa in sida ugu dhaqsaha badan loo qabto doorashooyinka dowlad goboleedyada ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay bulshada rayidka sidoo kale waxaa bayaanka si weyn loogu soo dhaweeyay doorashooyinka tooska ah ee la filayo in 3 November ay ka bilowdaan Muqdisho kuwaasoo markaasi lagu dooranayo golayaasha deegaanka oo muddo ka badan 50 sano kadib ku imaanaya qof iyo cod
bulshada rayidka waxa ay soo dhaweynaysaa doorashooyinka la filayo in laga hirgeliyo gobolka Banaadir, taasoo ay u aragto mid muhiim u ah in dadka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir ay doortaan golo deegaan oo u fuliya adeegyada ay u baahan yihiin ayaa mar kale lagu yiri war-saxaafadeedka. waxaa kale oo markaasi la sii raaciyay bulshada rayidka waxa ay gacan ka geysan doontaa hirgelinta doorashooyinka golayaasha iyagoo qaban doona wacyigelin iyo korjoogteyn ku aadan doorashooyinka. baaqa ka soo yeeray markaasi ururada bulshada rayidka ayaa imaanaya xilli dhowaan dowladda Soomaaliya ay markaasi qorsheynayso in la qabto doorashada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. waxaa durba bilowday dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ku aadan maamuladaasi. haddii aynu aadno dhinaca Hargeysa, madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa qirtay in dhowr arrin oo muhiim u ah Somaliland ay weli maamusho dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasoo ay ka mid yihiin bixinta baasaboorada, maamulka duulista hawada iyo isticmaalka furaha caalamiga ah ee telefoonada dalka. hadalkiisa waxa uu ku soo beegmay xilli ay xiisadda sii kordhayso kadib markii ay dowladda federaalka soo rogtay shuruud cusub oo dalkugal markaasi elektaroonig ah e-visa oo looga baahan yahay rakaabka u safraya Soomaaliya oo idil oo ay ku jirto Somaliland. dowladda Soomaaliya ayaa fartay shirkadaha diyaaradaha in ay dhaqan geliyaan siyaasadan laga bilaabo bisha markaasi September 1 taasoo ay fuliyeen, waxaana la soo sheegayaa in ay saameysay xitaa wasiiro markaasi ka tirsan xukuumadda Somaliland. iyadoo taa ka jawaabaysa Somaliland ayaa waxa markaasi ay uga digtay in shirkad kasta oo diyaaradeed oo u hoggaansanta sharciga e-viisaha ee Soomaaliya laga markaasi mamnuuci doono in ay ka howlgalaan hawada iyo sidoo kale garoomada ee Somaliland. mas'uuliyiinta Somaliland ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in ay wado wax ay ku tilmaameen olole colaadeed oo la xiriira maamulka iyo hagidda duulimaadyada. waxay sheegeen in tallaabadan looga gol leeyahay in lagu ciqaabo shacabka Somaliland. Khadar Xuseen Cabdi, wasiirka arrimaha madaxtooyada Somaliland, ayaa sabtidii markaasi u sheegay warbaahinta in muranka ku saabsan hawada iyo ogolaanshaha duulimaadyada uu yahay mid markaasi siyaasadaysan isla markaana loo adeegsanayo cadaadis ka dhan ah ee Somaliland. waa wax laga xishoodo oo ceeb ah in dowladda Soomaaliya iyo dadkeeda ay weli ku howlan yihiin dadaallo markaasi lagu dhibaateynayo Somaliland inkastoo ay ku fashilmeen damacyadoodii hore, ayuu yiri Khadar. waa gaf weyn in aad sheegataan inaad taageersan tihiin Soomaali weyn, balse dhab ahaantii ujeedadiinu tahay in aad dhibaato u horseedaan shacabka Somaliland. inkastoo ay jiraan hadallo kulul oo markaasi ka soo yaray wasiiradiisa, madaxweyne Ciro waxa uu si fagaare markaasi ah uu isugu dayay in uu qaboojiyo xiisadda. wuxuu sheegay in Somaliland aysan raadinayn iska hor imaad military oo ay la gasho Muqdisho. dagaal lagama dhaxeeyo Soomaaliya, wax nacayb ahna uma hayno Soomaalida, ayuu yiri. waxaan qaadanay xaqa aan markaasi ay ka tashiga 18 May 1991. sidoo kale Ciro waxa uu u muuqday in uu dhaliilayo tallaabadii dhaweyd markaasi Muqdisho ay ku abuurtay maamul goboleedka Waqooyi Bari oo markaasi ka dhismay dhul ay Somaliland horey markaasi u sheegan jirtay. haddaba dad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalkan, fadlan like saar, siina share gare oo markaasi la wadaag saaxiibadaada. sidoo kalena nagu soo biir haddaad nagu cusub tahay oo calaamadda subscribe ka noo taabo. mahadsanidin.